aanu u dhiibnay xukuumaddan ummad rafaadsaneyd oo markaa ka soo baxay dhibaatooyin fara badan oo xukuumaddii hore ay ku haysay heer federaal iyo heer deegaanba markaan aragnay waxyaabaha ka socda kililka waxaa khasab nagu noqotay in aan dhaano sidan ma soconayse waa in aan samayno rogaal celis dambe si aan ummadda u sabata bixinno. waa maxay waxaad aragteen eed ka fadhiiraadihiin ee deegaanka aad ku aragteen? deegaanka hadda waxaan joogay anigu muddo ilaa 20 beri ku dhow meelo badan baan maray waxaan arkay iyo wixii aan maqlayba wixii aan arkay waxaa kow ka ah musuq baahay oo runtii xukuumadda qaybaheeda kala duwan si u socda xadhaafa hantidii ummadoo la boobayo dadkii waxaan lahaa oo ka gaajaysan oo rafaadsan sharaf lahaa oo ka gaajaysan oo rafaadsan sharaftii iyo karaamadii ummadda oo maaragtay maalinba hoos usii dhacaysa eex fara badan cadaalad darro iyo qabiil aan geed loogu soo gabanno. waxaad og tahay dowlad deegaanku inuu xurdan yahay dowladdiisani oo 6 bilood keliya ay jirtay marka miyayna degdeg idinku ahayn in haddana intaad dib usoo rogaal celisaan aad tidhaahdaan dowladdii yarayda ee hadda dhalatay haddana xiidada ha loo fujiyo oo aan la garanaynin wax iman doonaa dowladdan markii la dumiyo kadib? dadka shacabka ee hadda waddanka degan ee Soomaalida ah markaad waraysato waxay ku oranayaan dowladdii Cabdi Maxamuud Cumar 6 sano meesha ay ku gaadhay way 6 bilood ku gaadhay xagga corruptionka sanadihii hore taa dowladdaasi yani xagga wax ka qabashada nabadgelyada iyo waxyaabo iyo lagu mashquulsanaa laakiin sanadihii dambe ayagu waxay u digariyotay mid corruptionkeedu uu yahay mid layr caadiya tan bartii uu Cabdi kaga tagay baa laga bilaabay 6 sano meeshii corruptionka uu ku gaadhay ayaa 6 bilood lagu gaadhay. siyaasiyiintiina waa socotay maanta timid dad badan ayaa waxay sheegayaan inaad damacsanaydaan inaad dowladdan ka qayb gashaan oo xukuumaddan aad ka qayb gashaan oo aad weydeen kolkaa kadibna aad mucaaradnimo isu rogteen aan macno badan samaynayn weliba dad badan say sheegayaan. xukuumaddan hadda maanta jirta inaan intaan damacna inaan ka qayb galno oon boos ka weynay ma aha abaar fara badan oo adag baa jira tusaale waxaan usoo qaadan karnaa gobolka Liibaan oo kale hadda maalmaheed waxaa naloo sheegay ilaa 5 qof inay oon ugu dhinteen gobolladuna sidoo kale weeye magaalo madaxdu biyaha dadku cabaan ma haystaan waxaana aragteen madaxweynihii aan u dhiibnay dowladda deegaanka Soomaaliya shacabkeedu iyo federaalku lagu aaminay inay tahay markii saddexaad ama afraad uu Nairobi hadda ku noqday markaad weydiisana waxa lagu oranayaa madaxweynuhu uu soo nasanaya war dadkii baa abaar iyo u dhimanaya gaajo arrinkaasi ma aha mid la qaadan karo. waxaad rabtaan inaad dowladda la saxo mise waxaad rabtaan xukuumaddan lafteeduba inay meesha ka baxdo halkaas seed u aragtaan? halka waxaanu u aragnaa in madaxweynuhu uu booska iska casilo uu ka tago marka waxaan leenahay Mustafa waad ku fashilantay yani amaanadii ummaddan ay ku dhiibatay yani capacity aad ku wadi kartidna malaha marka madaxweynuhu inuu is casilo ayaan soo jeedinaynaa hadduu is casilo waana shacabku waxaan kula talinaynaa inay iska dulqaadaan dulmigan maanta